bit ya marka fadhiga halka soo fadhiisteen ama inaan dadka uga khibrad badanaya ama uga aqoon badanaya ma ahayn laakiin hawl lagu soo dhibaaxay magacayga suu Cabdifatax sheega waaye marka wax badanna idama dhaamin su-aasha weydiis marka haddaa u laabto oo caqabadaha waqti waa heli karaa soo laba daqiiqo weli wax ka yar maasan tahay cilmi walba hadda ama wuxuu yaallaa internetku yaallaayo laga wada heli karaa qof walba kulley laakiin inta ani is yaray ii sheeg caqabadaasa jiri kara oo kale ama in ragga walaalahaaga aad waxa u sheegtaa fiicnaan lahayd saddex qayba horta u kala qaybiyey mid general ah oo iska guud ah mid ii sheeg qofka ku xiran iyo shaksiga caqabadiisa ku xiran ah iyo midka bulsho ahaan looga xiran marka mid generalka qof walba wada taaban karto waxyaabaha kamid ah waxaa kamid ah ii sheeg luqadiya kamid ah waxaa kamid ah af soomaali looga hadlo oo ii sheeg soomaaliya nahay iyadoo taas ay jirtaa manhajkii waxbarashadana luqada soomaaliga kuma baxayo oo luqad qalaad ugu baxayo carabi ha noqdo ama english ha noqdo dadka aad waxbarashada ardayga u tagayna waxaa laga yaabaa in sheeg labadaas luqadood wax kusoo bartay inay isdhaafsan yihiin inuu carabi kusoo bartaa laga yaaba dalka u tagayna uu ku hadlo luqada ingiliishka oo kale middaas qodobada ugu horeeya oo kuwa guud oo caqabadaha ardayga ku noqon karo ayaan ka dhigay midda kalena waxay isla raacsan tahay manhajka ay raacsan tahay waxbarashada taasoo noqon karta ii sheeg manahijtiyo kala duwan oo kale iskoolka kasoo baxday waxaa laga yaabaa in xoogga u saaraya maadooyinka sayniska oo kale adigana maadooyinka inta aad kasoo dhigtay artist waxyaabahaas kale aad u tahay marka taas xaggaas aad ugu gudbo balse waa fahmi karaa kolley dad magaalada dadka jooga dowryahay dhibaatooyinka marka oo xoogga ah magaalada saar waxay tahay midda shaksiyadeed qofka haysato oo macnaha midda personalka midda generalka waa lasoo qabaayo waxaa laga yaabaa adoo magaalada socoto magaalada socotid inaad aragto qof kaloo dhibkii kula qabo laakiin aad daadaniyo maxaan waa wax iska guude isaadkayniyo nabaga iska dhig laakiin waxyaaba kale waxaa jira caqabad kale qofka ku xiran oo sida silsilad oo kale ugu xiran ilaa inuu si iska furfurmaan aysan ka tegi karin aa kamid ah waxaa kale qofku inuu magaalada uu ku cusub yahay oo kale wax badanaa la dhahaa sheeg erey badanaa loo biyaa qofkaan junior miya senior miya qofkaan hadduu senior yahay waxay ka dhigan tahay inuu caqabadihii dhan kasoo tallaabsada ka dhigan tahay marka waxyaabaha qofka magaalada ku cusub yahay waxay kamid tahay waxyaabaha ay sheeg saameyn karto qofka inuu waxbarashadiisi waxyaabahaas oo kale qaybta kale aan ku daro waxay tahay inta muhiimsan aan soo qaadanaya social mediaha iyadana qayb waxay u tahay qofka inuu waxbarashadiisi hadafkiisi iyo ka reebo ama ay caqabad ku noqoto waxbarashadiisi iyo social media marka waa adduun dhan oo hadda guuraayo qofkii waxaa laga yaabaa Cabdifataxu u imaaday inuu engineering barto ama maadooyin kale barto waxaa laga yaabaa inuu social media ka dhex arko qof kale oo aan haddana engineering baranaynin laakiin ka caansan ka labis qurxoon oo magaaladiina ka shidan tahay marka isleeyahay iyo meesha maadaa soo tartantay see waxaa jiraan marka social media inaan been loo sheegin addictionkaas oo qofku mobilkii iyo waqtigii kaa lumin haddaysan hataa waqtigii kaa lumina waxaa laga yaabaa inay maankii kaa lumiso haddaysan hataa waqtigii kaa lumisa adoo aan waqti badan midda kale oo qodobada waaweyn ka dhigana waxay tahay waxa ugu weyn waxay tahay waqtiga iyo lacagta inaadan maamuli karin waa wada ogahay isheeg waa magaalada waa joogay bis saddexdeeda koodeeda inay lacag soo gaartaa laga yaabaa saddexdeedana aad deen raasatid miskooladaada meelaha laga helo marka taas waxay dhici kartaayo isheeg lagof lacagaha lagu soo diray ila maamuli waa taas way jirtaa in macnaha ay kugu adkaato ay noqonaysaa mid kaloo marka weynaa jirto midda waxay tahay marka waxaa english lagu yidhaahdo individualism macnada qofka dhibka inuu dareemo inuu isaga bis ku hayo bis hadduu xalisanayana isaga keliya u xalisto haddii maalintaas ay seminar jirto ama workshop magaalada uu ka helayna keligiisii waa
wax walba ay keliya isku wada xirmaan taas idan saameyn ay leedahay midii kale waxaa jirto socialka ama bulsho ahaan qaybtaa u leenahay oo ah waddankeeni oo isheeg dhibaato badan ka jirto oo isheeg saameyntii waxbarashada aysan ka muuqan saameyntii ama xoogga qofkii awood wax ku keeno ayaa inta badan waxaa deegaamada laga arkaa dee isheeg hebel daraad intaasuu soo diray ama intaan ahaa qabtabacdu ahaa maanta waxaa waaye isheeg nin oo ama hogaamiye ama xisbi wata ama wata adiga wax noocaas oo kale waddanka waa la fahmi karaa inaa aqoonti kale ma rabin marka in aad u aragtid macnaha aqoontii iyo aqoonta wax lagu geli jiray oo kulkaasi ha rajaxumo oo isheeg rajaxumona ma dhihi jirin rajaxumo iyo aan masalay in wixii dadka ku helayo wax ku helayo yes taas way jirtaa iyo wallahi haddaan runta ka hadlo waa soo kaba waa second skill haddaan runta ka hadlo rag badan waa soo dhiganay rag badan waa wadaagnay aqoontii aad ugu fiicana aad iyo aad weliba laakiin qofaa sheekaysanaysin oo aad wax u yaqaano waxaa isleedaha marka qodobkan marka asi sharaxaya keliya inaad dareentid macnaha in waxaa baratay ama kartidaada uusan dalka u baahnayn ama bulshada u baahnayn taasna qayb ka mida waayo oo la haysato qof walba waa important qof walba waa muhiim dalkeenu loo wada baahan yahay bulsho ahaan dad yaraan nahay etoobiya waa arkeysa daraa in la dareysato laas diray waxaas iskama dhicin waa annagoo kala le waaye oo keliya marka inaan is aamino marka intaasaa kusoo aad waa shaqay